kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee Soomaalida ee aan idin hayno haddii aanu ku bilowno deegaanka Qalool oo hoostaga magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa wararku waxay sheegayaan in nin hubeysan uu rasaas ku furay goob aroos uu ka dhacay iyadoo wararkuna intaasi ku darayaan in qasaare kala duwan uu halkaasi ka dhashay goobta ayaa waxa ku caweynayay dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo halkaasi ay uga socotay xaflad waxaana wararku intaasi ku darayaan in qasaaraha dhimashada uu gaarayo ilaa halka qof halka saddex kale oo dhaawacana uu jiro taliska booliiska magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in wali ay ku raad joogaan shaqsiga ka dambeeyay in rasaasta uu ku furo dadkaasi ku sugnaa goobta xafladdu ay ka dhaceysay inkastoo wali ay soconayaan baaritaanada ku aadan sababta ka dambeysa in ninkaasi hubeysan uu rasaas ku furo goobta xafladda ay ka dhaceysay dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in rasaasta sababta uu furay shaqsigaasi ay ahayd in xurguf ama sidoo kale aana hore oo jirtay darteed uu rasaastaasi u huuyay isla markaana taasi ay ka dambeyso halka dadka kale ay sheegayaan in goobtaasi oo ahayd goob xaflad aroos ay ka dhaceysay uu wiilkaasi rabay ama uu xiriir kala dhaxeeyay gabadhaasi la aroosay inkastoo war rasmi ah xogtaasi aan laga helin balse wixii ku soo kordha wararkayaga ayaad ku daawan doontaan wali wararkayaga ayaa daawanaysaan markana maamulka Puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiray 22 iskuul oo ka tirsan deegaanada maamulkaasi iskuuladan sababta loo xiray ayaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Puntland waxa uu ku sheegay in ay tahay abaarta ka jirta guud ahaanba deegaanada maamulka Puntland in ka badan 10,000 oo arday ayaa xilligan waxa ay soo wajahday waxbarasho la'aan iyadoo dad aad u fara badan oo ardaydu ay qayb ka yihiin ay saameysay abaarta war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Puntland ayaa waxa lagu sheegay in xal looga helayo abaarta ka jirta deegaanada maamulkaasi iskuuladaasi gabi ahaanba ay xirnaan doonaan waxaana tilmaantay in caqabado badan oo ay kamid tahay cimilada abaarta iyo sidoo kale COVID-19 ay isku kaashadeen dadka ku nool deegaanada maamulkaasi waana sababta keentay in irdaha la isugu dhifto 22 iskuul oo kamid ah iskuulada hoostaga maamulka Puntland ujeedka kulanka maanta wuxuu ahaa kulan ka dhashay xaaladaha ku soo kordhay dhinaca waxbarashada kaasoo noo muuqatay inay muhiim inoo tahay in xaaladahan isbedbedelahayo ee degdega ah ee waxbarashada ku imaanayo inaan ka yeelanno talo oo aan u bandhigno dhammaan bahwadaagta waxbarashada si ay uga qayb qaataan xaaladaha isbedbedelahaya ee waxbarashada kuwaasoo ku imaanayo inay ardaydii iskuulaadka ay ka tagaan ay mataqaanaa duruufaha dhaqandhaqaale ee ku yimid dhinaca abaaraha iyo isbedelada jiro oo arrintaas ay noqoto arrin muhiim u ah inay culayska lagu saaro waalidiinta oo waayo noloshii ay ku horumarin lahaayeen carruurtooda oo mar walbana ay uga warqabi lahaayeen sidii ay gacan uga geysan lahaayeen horumarinta waxbarashada sidaa darteed waxaa maanta ujeeddadeennu ahaa in xaaladaha isbedbedelahayo oo ku imaanahayo waxbarashada ama xaaladaha degdega ah ee waxbarashada si loo horumariyo waxaan u bandhignay bahwadaagta inay arrintaas sidii looga wada qayb qaadan lahaa maadaama hadda xilliga aan ku sugannahay ay tahay xilli abaarah oo ballaaran abaartaasito ay ku timid in ay hoos u dhacaan ama iskuullo badanna ay xirmaan kuwaasoo mataqaanaa ay ku yimaado hoos u dhac dhinaca ardayda dhinaca iskuulaadka iyo dabeelo iyo duufaano dhacay ay u burburaan arrimahaasoo dhan u baahan in gacan ay ka geystaan dhammaan bahwadaagta maadaama bahwadaagta ay gacan ka geysanhayaan la rabo inay qayb ka noqdaan waxaa loo baahan yahay inay iyagu laftigooda ay qorsho midaysan aan ka wada diyaarinno si loo sameeyo consolidated plan oo loo wada dhan yahay laguna wajahayo habkii emergency-ga looga qayb qaadan lahaa ma noo sheegi kartaa iskuullada isxira iyo gobollada ay ku yaalaan dabcan bishii May ama Abriil waxaan helnay ilaa iyo 12 degmo oo iskuulladooda ay isxireen
dabcan 17 iskuul ayuu markaa ahaa warbixinta dambe aan helayna 2 iskuul baa ku soo kordhay dabcan hadda iskuulaadka markuu furmana waxaa soo kordhayo inta hadda aan ognahay in ka badan baa laga yaabaa inay soo kordhaan sababtoo ah problemiska hadda jiro oo hadda taagan waxa weeyaan in ay abaartii ay sii xoogaysanayso in ay dhibaatadii iskuulaadka ka jiray inay xoogaysanaanayaan marka maadaama arrimahaasoo dhan ay taagan yihiin waxaan u baahannahay inaan dib ugu noqonno daraasad kale oo aan ku soo samaynayno isbeddelada yimid dhowrka biloodoo iskuullada ay xirnaayeen waxa iska beddelay iskuullada hadda furmahayo oo xilli dugsiyeedka hadda aan ku jirno maxaa iskuullo intii tirada aan haynay ma kordheen maxaa iska beddelay dhammaan waxaan rabnaa inaan daraasaddaa ku samayno waxaa markaa soo baxayso hadda 12 degmo ayaan ogeyn 12 degmo in ka badan 12 degmo baan hadda laftigeeda emergency response baan u diyaarinay si aan uga jawaabno dhibaatooyinka ay qabaan iskuulladaas baan qorshe u samayno qorshihii hadda already waxaan rabnaa inaan hadda implement gareyno maadaama iskuulaadka uu furmaayo haddana waxaa soo kordhi karo kuwa badan oo kale oo iyagu sida hadda aan xogta ku bixinnay inay yimaadaan dabcan waxaan bahwadaagtana markaa hadda aan ka rabnaa iyaguna inay ka qayb qaataan sidii uga qayb qaadan lahayn arrinkaas sidii waxa soo kordhana loogu diyaar garoobi lahaa guud ahaan wararkii Soomaalida aad kala socoteen halkan waa naga inta wixii nagu soo kordha wararka soo aadan ayaad ku daawan doontaan waadna ku mahadsantihiin la socodka wararkayaga